أصحابي أما قفي هو صوماليات ما دونيسا إن لغو احترامه ما دونيسا إن هيرك أدونتو أما أدوغ دونيسو أو أتارجت كاغوية هاي أو كوت المامن إن تكجرتو بلشدة دا لحديدة ما دونيسا إن هرمود نقطه ما دونيسا إن نقطه قف آد هيركيسا أما قيمهيسو أصريو jawaabtaadu hadday haa tahay ha yaraysanin dadka yaan lagu yaraysanin bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan walaalahayga daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaha badan leh aan ka wada socono bartan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shukri Muuse Talent Channel dhamaantiinba waxaan idin leeyahay mar kale iyo walaashin Shukri Degan oo idin wada barnaamij cusub asxaabay marka hore waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak Ilaahay aan naga aqbalo acmaasha wanaagsan midkiisa kale iyo kuwa kale badan oo ka dambeeyana samo iyo siyaado Allah nagu gaarsiiyo meel walba joognana Allah nagu amaansado barnaamijkan cusub asxaabay waxaan rabaa inaan kaga hadlo ama ansiyay waxaan rabaa inaan kaga hadlo marka hore inaanan qofka bini aadanka ah waxba yaraysanin title-ka ama ciwaanka barnaamijkan uu leeyahayna waxa waaye ha yaraysanin yaan lagu yaraysanin intaanan asxaabay barnaamijka u sii gudagelin waxaan rabaa inaan idin kaga cudur daarto buuq badan ka jira xaafada ciyaal badan oo ciyaaraya dadkina hada sidaad wada ogtihiin ba gurihiina jooga la yiri oo dadku isku badan yahay waa Ramadaan afuraa la sameeysanaya waa galab marka buuq badan hadii aad maqashaan ka raali ahaada waxaan ka qaban karaa malaha guriyaha la wada fadhiyaa marka ka raali noqdo intaasna idin ka raali geliyaan rabaa intaan barnaamijka sii guda galin barnaamijkeenan ha yaraysan yaan lagu yaraysanin waa barnaamij aan cid gooniyo qusaynin laakiin bulshada Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya dhalinyaro iyo waayeel ka wada dhaxeeya lab iyo dhadig mid u gooni ah aanu jirin ama qof u gaar u yahay aanu jirin ha yaraysan yaan lagu yaraysanin waxa waaye asxaabay mar haddaad naflay tahay bini aadan aad tahay aad nooshahay dad aad la nooshahay mujtamac aad ku dhex jirto meel walba joog adduunyada dal gudihiis iyo dibadiis iyo xagga doontaba ku noolow qof nool aad tahay waxaad la kulmaysaa dad fara badan waxaad la kulmaysaa nolol baad ku jirtaa ruuxaagu shaqooyin baad dad shaqo wadaag aad tihiin dad baad waxbarasho wadaagaysaan dad baad si caadi ah isu baranaysaan dad baad la jaaraysaa ama la daris aad la tahay waxa wanaagsan inaadan horta dadka yaraysanin inay bini aadanka aad la nooshahay ha ahaado qof nolol kuugu daran tahay ha ahaado qof daris kula ah ama maxay ahayd qoys daris kula ah ha ahaadeen maaragtay dad aad si kale isu barateen ama mujtamac shaqo wadaag tihiin horta inaadan bini aadanka yaraysanin oo qof walba bini aadana naftaada aad la mataasho oo meesha waxaad adigu naftaada la rabto oo wanaaga aad la rabto oo wixii adiga naftaada ku xun aad qofkaas inay ku xun yihiin aad dareemi karto ayaan horta marka hore ugu wanaagsan oo aadan yaraysanin bini aadanka yaraysigu dhinac kastuu noqda adigana inaan lagu yaraysanin waxa uu la jeedaa dadka aad la shaqayso shaqo wadaaga aad tihiin inaanay ku arkin qof yasan ama qof yacni wax walba la marsiin karo ama qof aan waxyaabo badan fahmaynin oo garaadkiisa uu hooseeyo dariskaaga sidoo kaleeto inaanay ku yaraysan adiguna aadan yaraysanin adigu aadan dariskaaga yasin oo aadan inaad maaragtay waxba ayna ahayn aadan ka soo qaadin adigana sidoo kaleeto aanay ku yaraysanin oo inaad qof bini aadana tahay inaad dariskoodi tahay oo jaartihiin inaad maaragtay xushmada aad adigu iyaga xushmaynayso mid la mid ah aad ka mudan tahay inay ku ogaadaan sidoo kale qoyskaaga iyo dadka aad la nooshahay ama qofka aad nolol wadaaga tihiin hadaad wiil tahay hadaad gabar tahay
dad yartahay haddaad weyntahay da ma laha barnaamijku topican ma laha macnaha da ma laha qaybtan hadda aan ka hadlayo inaanan haddaad wiil tahay gabadha aad ku dhaxda aanay ku yaraysanin inaanay ku arkin inaan waxba ahayn inaanay ku arkin mid maaragtay iyadu siday doonta ka yeelan karto inay maaragtay adiga ku yaraysan adiguna sidoo kale ayada aadan yaraysanin wiil markaa tahayna inaadan gabadha aad xaaskaaga ah aadan yaraysanin inaadan u arkin inaynan waxba ahayn inaadan hadalaha waxaad rabta hadalladaad rabta aadan isaga tuurtuurin oo inta badan ragga waxaa lagu yaqaanaa anoon hawaankana gooni u ammaanaynin waxaa jira hadalla aanay ka fiirsanin oo ay xaasaskooda yidhaahdaan hadalladaasoo laga yaabo gabadhan u dhaxday in ay dareen kale ka qaadato ama jug weyn ay gaarsiiso hadallaan iyaga markaas aan qiimo badan la lahaynin laakiin qofka kale dhibkiisa ugu filan oo la mid ah xikmaddii dhahaysay bulac dabagooyadii ilmo waa u dheel isagana waa u dil yaa bulaca dabada laga gooyo bir tirahda ilmaha waa u dheel way ku ciyaarayaan dabaday jafka siinayaan waa ku ciyaarayaan dabadaas firfirflaha isaga bagayaan ay fiirsanayaan laakiin isaga waa u dil waayo xibin dhan oo jirkiisa ka mid oo ilaahay uu sameeyaa laga gooye xanuunka uu dareemayo waxa uu dareemayo ma malayn karta laakiin ilmaha yar ku dheelaya ma dareemayo ciyaar u fahmaya bulcaanna waa dhibaato asaga xanuun iyo damaq iyo xibintiisa huwaaye iyo dhibaatay ku haysaa marka hadallo noocaas oo waxaa jira la isku tuurtuuro oo qofka hadalka ku socdo oo la leeyahay jug weyn gaarsiinaysa qalbigiisa iyo maskaxdiisa laakiin qofka yiri aanu waxba u arkaynin marka yaanu ku yaraysanin ninka adiga ku qabaa gabaray yaanu ku yaraysanin yaanu ka soo qaadin qof doqon oo waxba aan fahmaynin wixii la rabo la dhihi karo hadalkii la rabo lagu tuuri karo qofan damqanaynin oo jir damqada lahayn oo qalbi damqada lahayn oo bini aadanka caadiga macnaha ka liidata adiguna ninkaaga ama gabar yahay odagaaga ha ka soo qaadin qof wax aad leedahay ayna ka daadagin oo aanan fahmaynin oo hadallada kormarka ah oo asaga aad ku wado aanan dareemaynin oo wixii nin iska sahlanoo iska saqiranoo adigu intaad kuuskuusato meeshaan aad dhigato adigu lahaatimaysatood lahaatayo waxa doontaad ku samayn karta ha u fahmin maaha saa u malaynaysid maaha ha yaraysanin bini aadanka waalidka ruuxiisa waa inaynu carruurtiisa yaraysanin carruurtu waa inaynu waalidkood dhayalsanin ayagoo og in mar walba la og yahay waalid inuu waalid yahay waalid qiimo gooniya leeyahay haddana inaadan u fahmin inaad maaragtay meesha doonto marto waxa doonto samayso waalidkaana aad been ku cabto beentaasna una fahmaynin adiga le aad caqli leedahay macnaha oo waalidka waxaad fahmayso kula fahmi karin uu kula fahmi karaa laakiin waa uu ku ixtiraamaya xataa wiilkiisa ama gabadhiisii ixtiraam weyn uu ku haayaa waxa tahay xaaskiisii ixtiraam weyn aad u haysaa maaha inaad hadalkiisa fahmaynin maxay ahayd wiilka adiga ku qabaa gabar yahay ninkani waa odagaagii wuu ku ixtiraamayaa waxa tahay xaaskiisii sidaas daraadeed ayuu ku ixtiraamayaa maaha inuu hadalkaagu ka hoosayo ama uu ka hoos baxayo ama adigu kor hadli karto ama una ku fahmaynin marka dadka ha yaraysanin maxay ahaday bini aadan baa tahay adigu meel baad hiigsanaysaa mujtamaca kugu xeeran iyo dadka aad la nooshahay ama kuwa aad shaqo wadaaga tihiin ama kuwa aad dariska la tahay meel bay hiigsanayaan ha isdhihin adigoo kaliya wax qabsan kara adigoo kaliya heer gaari kara dadkaani waxba maaha ha yaraysanin dadka markii qof adiga dhigaaga ah la soo sheego inuu hamigiisii meel ku gaaray ama wax weyn uu qabsaday yaani kula ahaanin basiid inuu waxba qabsan karin waxna ma qabsana been uu sheegay naga daa meeshuu sheegay ma gaarin qofkaas ma gaari kara horta ma fiirisa adiga gabadhaas ma aragtay ma fiirisa ra'yigeeda ma aragtay maskaxdeeda ma darastay ya waxa sheegaysiin qofkan qof dhan maba ahaba meeshaas gaari kara ma aha hayasin dadka hayasin inaad adiguna doonayso in kor lagu qaado oo mar walba waxaadan qabanin xataa amaan lagugu dhoobo oo lagu yidhahdo heela bisinka libaax dhaafay heblaaya alla maxay gabar tahay diricad tahay heeray gaartay dadka adiga dhigaaga ahna aadan u rabin heerka ay gaareen xataa in la sheego ay ku dhabayso
oo diyaaraysanayso adiga la isla weynta adiga la balay casr salta adiga la in lagu sheeg inaad mudan tahay isu haysato no ha yaraysanin dadka waxa imaanaysa markaad adigu aqligo dhan adigu isiiso oo dadka kala aad yaraysato oo aqoonto dhan adiga isiiso oo dadka kala aad yaraysato oo qofka kula nool aad yaraysato oo wixii cid kula darisa aad yaraysato oo cid aad nolol kala wadaagtaan ama aad shaqo wadaagtaan ama aad maxay ahaydey ganacsi wadaagtaan ama aad caadi mujtamac ahaan isu barataan aad yaraysato aad adigu kor isu sido umada kalena aad yaraysato waxa soo baxaysa barka maalin adigana in lagu yaraysto cid kale isla weyno hanfuura daanyeer laho maxaa la dhihi jiray adiga ku yaraysata inay soo baxdo nina baana hadda ka hor wuxuu yiri hanfuura daanyeer halaho tin waayo yiri tintiisa gasta asaga ku taalo fiyo kama badno dhaha hanfuura daanyeer isla weynan daanyeer intaas kama badna ya marka inaadan hanfuura daanyeer yeelanin oodan dadka yaraysanin iyaguna aynay ku yaraysanin ayay noloshu ku wanaagsan tahay marka barnaamijkan waxaan ka hadlayay oo targetkaygu ahaa inaadan dadka aad la nooshahay iyo mujtamaca aadan yaraysanin inaadan u fahmin inayna iyagu waxba garanaynin ama hadalkaagu mudaynin ama waxa aad leedahay aadan waxa la yiri caanan fiiqsi loo dhamin iyo hadalan fiira loo oran feerahay wax yeelaan inaad dadka bini aadanka ah markaad la xiriirayso markaad la noolaanayso markaad wax ku darsanayso si taxadir leh si ixtiraam leh aad ula noolaato waxna ugu darsato kulana xiriirto kuna macaamisho si adigana sida dadka u ixtiraamtay oo kale barita lagu ixtiraamo laakiin haddaad ixtiraamka ka tagto adiguna aad ixtiraam bulshada ka sugaysid ixtiraam kama helaysid ixtiraam ma arkaysid cid maalin walba tanageeyo koombada ka daba tunta adiga ma arkaysid gurbaanka ka daba qaadata ma arkaysid marka inta aan walaal ixtiraam bulshada aad la nooshahay ixtiraam dadka aad la macaamilayso ixtiraam kuwa aad nolol wadaaga tihiin ixtiraam kuwa aad jaarka ama deriska tihiin oo noloshu idinka dhaxayso si adigana lagu ixtiraamo ha yaraysanin dadka si aan adigana berrito lagu yaraysanin barnaamijkayga intaasaan rabaa inaan ku soo koobo waad ku mahadsantihiin dhagaysigiina iyo daawashadiina iyo ixtiraamkiina intaba aad baan idinkugu mahad celinayaa walaalayaal tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadiinada eebbaha ahaato korkiina nabad iyo caano ramadaan kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh